munaasabada aad u ballaaran ayna kasoo qayb galeen qeybaha kala duwan ee bulshada, mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk Soomaaliya, waalidiin, ardayda sanadkan ka qalin jebisay jaamacadda Muqdisho iyo bahda waxbarashada. Maanta jaamacadda Muqdisho waxay u qabatay arday gaaraysa 772 arday kuwaasoo ka qalin jebiyey kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda Muqdisho. Munaasabadan oo si arsara loo soo qabanqaabiyay ayaa goobta lagu qabtay waxaa laga dheehan karay quruxda iyo sida loo diyaariyay habmaamuuska munaasabada. ugu horeyn waxaa munaasabada ka hadlay Dr. Cali Daahir Maxamed oo ah gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda Muqdisho ahna mas-uulka waxbarashada ee ardayda, wuxuuna kula dardaarmay arday kasta inuu noqdo mid u adeega bulshada Soomaaliyeed. maadaama maanta halkaan u joogno dabaaldegga iyo sagootinta dufcadan ayaan jeclaan lahaa laba kelmood maxaan dhahaa inaan ka jeediyo oo ku saabsan ardayda maadaama ay qalin jebinayaan. ardayda waxaan dhihi lahaa maadaama aad wax soo baranayseen qaarkiin 6 sano, qaar 4 sano, qaar 2 sano, kuugu yar ay baranayeen dibloomka ay baranayeen 1 sano. maanta waad qalin jebiseen, waxaad aadeen bulshadii. marka waxaan idinka rajaynaynaa wixii aad barateen oo ku dheehan akhlaaq inaad ummadda ugu adeegtaan, inaad noqotaan arday bulshadooda u adeega si hufan, arday bulshadooda kaala dhan kasta maxaana ay u baahan yihiin in laga kaalo. munaasabada waxaa hadal ka jeediyey Dr. Maxamed Xasan Nuur oo ah diiwaan hayaha guud ee jaamacadda Muqdisho, wuxuuna munaasabada ka sheegay tirada ardayda sanadkan ka qalin jebisay iyo kulliyadaha ay ka qalin jebiyeen. dadka ama ardayda jaamacadda dhigtay xilligan waxay isugu jiraan 2 qaybood: qaybta post graduate-ka daraasaadka sare iyo qaybta undergraduate-ka. markii la isku daro guud ahaan waxay isku yihiin 772 arday ayay yihiin. 39 arday waa post graduate, 733 waa undergraduate. 733daas waxay isugu jiraan oo ay dhamaysteen 22 takhasus ayay dhamaysteen. 314 waa gabdho, 419 waa wiilal. gabdhuhu waxay ka yihiin 43%, wiilashuna waxay yihiin 53%, waa 57. hambalyo aadam asalaam calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Dr. Cabdiraxmaan Macalin Cabdullaahi Baadiyo ayaa u hambaliyey ardayda ka qalin jebisay jaamacadda Muqdisho oo ah dufcaddii 21aad ee sanadkan ka qalin jebisay jaamacadda Muqdisho. waxaan dhahayaa aqoon-yahanada maanta qalin jebinaya ku soo dhawaada naadiga aqoon-yahanada Soomaaliyeed. waxaad tallaabadii ugu horeysa u soo qaadeen inaad ku soo biirtaan naadigaas. waxaa la idinka rabaa sida la idiin sheegay inaad ku sii socotaan. waxaa la idinka rabaa inaad muujisaan dhaqan ka bedelan dhaqankii hore, dhaqankaas oo waxaabaa dalkayna burburiyey ka nadiifka ah. dhaqankaas oo markaad nolosha gashaan waxaad arki doontaan mujtamac dhiiqa badan ku dhex jira. ha ku daysana kuwa ummadda xoolaheeda xadar, ha ku daysana kuwa beenta sheega, ha ku daysana kuwa khaa'iniinta ahee dadka khayaana, kuwa ganacsiga ku khayaana, kuwa siyaasadda ku khayaana, kuwa nolosha ku khayaana. ha ka mid noqonina. diintiina ma ogola, ilaahayna idinkama aqbalaayo. in allaaha dayibun laa yaqbalu ilaa dayiban. waxaa laydinka rabaa dad nadiif ah oo mujtamac cusub oo isbeddel samaynaya inaad hogaamisana laydinka rabaa. Dr. Ibraahim Maxamed Mursal waa gudoomiyaha jaamacadda Muqdisho ayaa hambalyo u diray ardayda dufcadda 21aad ee ka qalin jebisay jaamacadda Muqdisho. inaannu insha allahu tacaala waxaan hortiina ka ballan qaadaynaa waalidka sharafta leh ee nagu aamina ciyaalkooda kuwa maanta qalin jebinaya, qalin bedelanaya, iyo kuwa hadda aan hayno, iyo kuwa aad noo soo wadaaneen noo iman doona. dibad ma jirto oo dalkeenna ayaynu aaminee. tanaa maqraato inaan dalkeenna aaminee dibadi ma jirto. waxaannu ballan qaadaynaa inaannu dadaalka sii badin doonno, sii labanlaabi doonno, tayada sii siyaadin doonno, qiimaha iyo akhlaaqda aan sii juhdi weyn ku sii bixin doonno. taana ballan baan hortiina ka qaadaynaa. mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay dhammaantiin
hambalyo dhammaan inta ka soo qayb gashay waalidiinta iyo ardada iyo inta kale ka soo qayb gashaba mar labaad iyo mar saddexaad madaxda ayaa inoo soo gunaanadi doonta. ugu dambeyn munaasabada waxaa ka hadlay wasiirka cadaaladda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur wuxuuna hambalyo u diray dufcadda 12aad ee ka qalin jebisay jaamacadda Muqdisho wuxuuna u rajeeyay guul iyo horumar wanaagsan. si gaar ah waxaan ugu mahadcelinayaa jaamacadda Muqdisho oo ku tilmaaman han sare horyaalnimo iyo himilo tolmo oo laga dheehan karo wax soo saarkeeda cilmiyeed iyo kaalinta ardadeedu ay kaga jiraan dhismaha qarannimada Soomaaliyeed. waxaan rabaa inaan halkaan mar labaad uga mahadceliyo guud ahaan jaamacadda Muqdisho macallimiinteeda ardaydeeda iyo dhammaan howlwadeenadeeda sida quruxda badan ee halkaan ay noogu maamuuseen ayna u soo abaabuleen xafladan qiimaha badan. waxaan leeyahay waa mahadsantihiin. tan iyo markii la aasaasay jaamacadda Muqdisho waxaa ka qalin jebisay dufcaddii 12aad waxaana dufcaddan ay qayb ka tahay ardaydii ka qalin jebisay jaamacadda Muqdisho. magacaygu waa Cabdisalaam Xuseen Ibraahim aad ugu faraxsanahay maanta heerkan aan soo gaaray anigoo ka qalin jebiyay jaamacadda Muqdisho dadaal dheer kadib 4 sano aan soo waday. waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa Allah subhanahu wa ta'ala ka sokooy waalidkii igu soo dadaalay oo heerkan soo gaarsiiyay. waxaan kaloo aad ugu mahadcelinayaa ardaydii ka qalin jebisay maanta oo dufcadda iyo ardayda dhammaan ee jaamacadda Muqdisho. aad ayaan ugu faraxsanahay inaan maanta heerkan soo gaaro waana sii jeclahay inaan sii wado. waxaan kaloo aad ugu mahadcelinayaa macallimiinta jaamacadda Muqdisho maamulayaasha iyo dhammaan aad ayaan ugu mahadcelinayaa aad ayaan ugu faraxsanahay. magacaygu waa Shukri Cabdullaahi Cumar waxaan ka mid ahaa ardayda sanadka ka qalin jebinaysa jaamacadda Muqdisho kulliyadda Public Health aad ugu faraxsanahay maanta inaan heerkan maanta soo gaaro. marka hore waxaan u mahadcelinayaa Allah subhanahu wa ta'ala oo heerkan soo gaarsiiyay. marka labaad waalidiinteeda marka saddexaadna waxaan u mahadcelinayaa macallimiinteeda oo aad igu soo dadaalay ayagana. magacaygu waa Yunus Maxamed Fiido oo ah ardayda ka baxday jaamacadda Muqdisho gaar ahaan kulliyadda Economic and Management Science economic farcadeeda aad iyo aad ayaan u faraxsanahay. waxbarashadii dheer iyo safarkii dheer ee soo maray marka koowaad waxaan u mahadcelinayaa Allah subhanahu wa ta'ala. marka labaad waxaan u mahadcelinayaa waalidiinteedii igu soo tarbiyay inaan waxbarashada heerkan ka gaaro. marka saddexaad waxaan u mahadcelinayaa dhammaan maamulka macallimiinta jaamacadda Muqdisho oo heerkan waxbarasho ay soo gaarsiiyay. Assalaamu alaykum magacaygu waa Iimaan Abuukar. maanta maxaa waaye maalinta qalin jebinayna jaamacadda Muqdisho maalin 4 sano sugeen waaye. aad ugu faraxsanahay maalinta guusha inaan soo gaarnay anaka iyo Bash 21 aad ugu faraxsanahay inaan soo qayb gal xafladeyda. Maxamed Xuseen RTN Muqdisho. abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. macmil ma ogtahay shirkadda Dahab Shell ay ku soo kordhisay application-ka Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-Dahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel. waliba Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda. haddaba sidee ayuu u shaqeynayaa application-ka Dahab Plus? Google App Store-ka ama Play Store-ka mobile-kaaga kadibna raadi Dahab Plus. marka uu ku soo dago isdiiwaangeli adiga oo raacaya weydiimaha isdiiwaangelinta. ugu horreyn ku qor nambarkaaga Somtel, emailkaaga, samaysana password kuu gaara. ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga e-Dahab. intaasi kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira application-ka Dahab Plus adigoo lacag u diri kara qof kale, wax ku iibsan kara, xawlaad dibadeed samayn kara, lacag dhigan kara, kalana bixi kara akoonkaaga Dahab Shell. in ka badan $126 oo caalamka ah ayaad si toos ah xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka Dahab Plus shirkado iyo shakhsiyaad intaba. adigoo isticmaalaya abka Dahab Plus waxaad adeega Dahab Pay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account. adeega M-Pesa ee dalka Kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee e-Dahab iyo bankigaaga. adeegyada Somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka Dahab Plus adigoo dhammaanba xidhmooyinka ku hadalka adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba. Dahab Plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud. mar kasta iyo mar kastaba ku isticmaal application-ka Dahab Plus.